Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabtayda qaaliga ah, dhammaantiin waan idin salaamayaa meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Waxaan idin leeyahay waqtigaa idin wacnaado. Maanta waxaan doonaynaa inaan sameyno YouTube channel. Casharkan waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo YouTube channel. Marka kusoo dhawaada casharka. Keli ah waxaad u baahan tahay marka aad doonayso inaad YouTube channel aad sameyso inaad soo furto browser-ka kugu jiro. Aniga hadda waxaan furanayaa Chrome-ka. Marka aad sidaan soo furto qaybtan kore falaarta ayaa taabanaysa, kadib ha ilmaamin walaal inaad tigta saarto desktop site. Calaamadan mar walba ha ilmaamin. Marka waan saarnay hadda. Marka haddii aad rabto inaad sameyso YouTube channel, laba option ayaa ka furan. Option-ka koowaad inaad Gmail aad leedahay. Haddii aadan lahayn, hadda ayaan sameynaynaa ila soco walaal. Qaybta kore ee Chrome-ka ayaad waxaad ku qoraysaa just sign up gmail.com. waa kan ugu sareeya. Kadib waxaad kasii xulan doontaa sign up Gmail Google oo qaybta ugu koreysa ah. Si fiican ila socda asxaabta. Marka halkan first name last name ayaad ku arkaysaa. First name tusaale ahaan hadda waxaan iska gelinayaa magac Maxamed oo kale. Maxamed Xuseen iska dheh. Keli ah waxaan sameynaynaa Gmail. Haddii aad leedahay Gmail, qodobkan skip ayaad ka dhigi kartaa balse waxaan videogan ugu diyaariyay dadka aan lahayn weli Gmail. Maxamed Xuseen iska dheh. Password sameynaynaa. Just intaan kaliya markaad sameysid next ayaan dhahaynaa. Marka magacan waa la qaatay ayuu leeyahay. Marka nambaraan gadaal ka raacinaynaa. Marka 678 ayaan raacinaynaa. Marka verification ayuu u weydiinayaa. Waan sameynay hadda Gmail-kii. Walaal hadda Gmail-ka waan sameynay. Kaliya waxaan u baahanahay inaan YouTube-ka aan ku xirano. Marka ila socda hadda. Marka aad kadib browser-kaaga aad gadaal u soo furtid, saddexdaas dhibac kortaa oo kadibna desktop site tigta saar. Kadib haddana waxaan sameynaynaa YouTube-ka inaan furno. waa kana walaal. Markaan hadda si automatic ayuu galay. Marka Gmail-kii qaybtan kore ayuu ku muuqdaa. Marka keli ah waxaad u baahan tahay hadda qaybta kore inaad taabatid. Kadib waxaa ku soo baxaysaa meel ay ku qoran tahay create channel. Inta ayaad kasii dooranaysaa. waa kan hadda magaca channel-ka ayuu ku keenay. Inta marka waxaad rabto ayaad channel-kaaga magaciisa ayaad ku qoran kartaa hadda. Tusaale ahaan bulsho channel. Kadib waxaad dhahaysaa create channel. Marka hadda waxaad ujeedaa inuu meeshaan uuna keenay. Kadib waxaad dooranaysaa customize your channel. waa kana walaal hadda channel-kii sidaan ayaan ku sameynay.
uu ku samaysan yahay bulsho channel ayaa la dhahaa. Marka waad u jeedaan, fadlan waxaan ka codsanayaa please walaal, markii kugu horeysay haddii ay tahay Somali Star Tech aad soo booqato inaad subscribe saartid channelka, sidoo kale gambaleelka aad furtid si fiidiyowyada kale ay ku soo gaaraan. Waxaan soo wadaa fiidiyowyo aan uga hadli doono sida channelka loo casriyeyn karo ama loo horumarin karo, sida fiidiyowyadaas viewskaaga ay ku badan karaan. Waxyaabo fara badan ayaa soo wadaa. Marka hadda channelkaaga waxaad samayn kartaa add channel art, inaad sawir aad saarato profile ah. Marka sidaan ayaa YouTube-ka lagu sameeyaa. Hadda wuxuu leeyahay select a photo from your computer. Marka channelka sidaan ayuu ku samaysan yahay. Fiidiyowada kale waxaan uga hadli doonaa sida fiidiyow loo upload gareeyo iyo sida subscriber-ka iyo waxaas oo dhan ayaan ka hadli doonaa. Marka waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin daawashada fiidiyowgan. Anigoo ah walaalkiin Qaadir, iyo mar kale fiidiyow kale oo xiiso badan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.